Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Qoysku waa mid ka mid ah garbaha ugu muhiimsan oo ay bulshadu ku duusho. Waxaa jira dadyowga qaarkii oo ku dhiban qaabkii ay ula dhaqmi lahaayeen qoyskooda. Qaarkood ayaa waxay yihiin kuwa aan laga dhex jeclayn qoyskooda. Haddaba, barnaamijkan waxaan kugu soo gudbin doonaa insha Allah qodobo kugu saacidaya ama kaa kaalmaynaya inaad noqoto qof laga dhex jecel yahay qoyskiisa. Haddaba asxaabta qiimaha badanow, ku soo dhawaada barnaamijka. Qodobka ugu horeeya, go'aan ku qaado in aad beddesho naftaada si aad qaab aad u qurux badan ula dhaqanto ama ula falgasho qoyskaaga. Markaan ku leeyahay noloshaada beddel, waxaan ula jeedaa haddii ay jireen qaladyo hore ama qaabab aan wanaagsanayn oo aad ula dhaqmi jirtay qoyskaaga, waxa ugu muhiimsan waa hooyo iyo aabbe beddel dhaqamadaas aad samayn jirtay, kana fogow hana samayn mar labaad. Qodobka labaad, ula hadal labadaada waalid si toos ah. Maxaa laga wadaa arrintaas? Waalidiintaada ula hadal si toos ah, yacni waxba ha u sarbeebin, hadallada ha u duur xulin. Isku day in aad waxa aad doonayso si toos ugu sheegto, iyadoon ixtiraamka aan meesha ka marnayn. U daa ha ogaadeen inaad kalsooni aad u badan iyaga ku qabto, sidoo kalena xaalad kastoo lagu jiro aad iyaga aad ugu dhowdahay. Qodobka saddexaad, u muuji ixtiraam. Siyaasaddan u isticmaal qoyskaaga. Waa maxay siyaasaddu? Waa inaad u muujiso ixtiraam mar waliba. Ma ahan inaad mararka qaar muujiso, mararka qaarna sheeko kale aad la imaato. Maya, sidaa maaha. Waa mar waliba. Xitaa waxyaabaha iska caadiga ah waa inaad ixtiraam badan muujisaa. Tusaale ahaan, subaxdii markaad soo kacdo oo aad labadaada waalid salaanto ama midkood, ereyada qaar aad adeegsanayso sida see tahay hooyo ama aabbe, xalay waad ii nabad bariday soo maaha oo kale, waa inaad ereyadaas u tiraahdaa qaab ixtiraam leh, qaab qadarin iyo maamuusid leh. Qaabkaas ixtiraamka ah oo weliba ka duwan qaababkii aad u ixtiraami jirtay dadka kale. Qodobka afaraad, isku day inaad buundooyin badan ama darajooyin badan keento jaamacadda ama iskuulka. Dhammaanteen waxaan ognahay ehelkeenna iyo qaraabadeenna ama qoyskeenna in ay yihiin mar waliba kuwa nugu faana marka aan xaqiijinno buundooyin sare ama aan meelo sare gaarno. Habkan si caqliyeysan u raadi, isku day inaad buundooyinkaaga ka dhigto kuwa sarreeya, inaad ka dhex muuqato ardayda sarsare ee buundooyinka mumtaaska ah keena. Qodobka shanaad, kaalmee qoyskaaga. Haddii labadaada waalid ay shaqada ka soo noqdaan xilli dambe ama midkood uu ka soo noqdo, isku day in aad cuntada u diyaariso, beddelka intii aad hooyada oo shaqo ku soo daashay ka dalban lahayd inay cunto idiin diyaariso. Qodobka lixaad, isku day inaad noqoto qof madax bannaan. Maxaan ula jeedaa noqo qof madax bannaan? Ma ahan micnaheedu taas inaad waalidkaaga ka soo horjeesato amaad mucaarad ku noqoto. Maya, sidaas maaha. Waxaan ula jeedaa mar waliba inay ku kaalmeeyaan ama aad dalabka ku badadaha isku dayin. Haddii aan tusaale ku siiyo soo kicidda subaxdii, ha ku kallifin waalidkaa in ay subax kasta ku kiciyaan. Beddelka intii waalidkaa ku kicin lahaa ama ay hooyada ama uu aabbaha ku kicin lahaa, isku day in aad gambaleelka saarato saacaddii aad soo kici lahayd, sariirtana u dhowayso si aad u soo kacdo. Markaasi howl ay waalidiintu qaban lahaayeen ayaad ka khafiifisay. Sidoo kale isku day inaad barato inaad diyaarsato quraacdaada. Inaad adigu diyaarsato, beddelka intii aad hooyada ama walaashaada kaa weyn aad ku dhibi lahayd in ay quraacda kuu diyaariyaan. Meeshan laba faa'iido ayaa ku jirta. Faa'iidada koowaad waxay tahay haddii aad adigu quraacdaada diyaarsato, dabcan cuntada qayb ka mid a sida loo diyaariyo ayaad baratay. Taasna waxay kaa saacidi doontaa markaad reer yeelato inaad lamaanahaaga kaalmayso. Iyo talabaadee ah, waalidiintaada ama walaashaada kaa weyn in aad ka khafiifisay shaqo ay qaban lahaayeen ama ay ku daali lahaayeen. Qodobka ugu dambeeya ee toddobaad, u muuji jacayl. Waa ehelkaaga, waa qoyskaaga. Adiga ayaa ah qofka ugu badan ee garanaya waxyaabaha farxadgelin kara qoyskaaga. Haddii aadan garanayn waxyaabaha farxadgeliya qoyskaaga, fadlan baar oo isku day inaad ogaato waxyaabahaas dartoodna u samee. Qoysku, daawadahayga sharafta badanow, waa mid ka mid a xiriirada ugu muhiimsan ee nolosheenna soo mara. Qoysku wuxuu ina siiyaa kalgacayl, farxad, jacayl, ammaan iyo waxyaabo kale oo badan oo muhiima. Xiriirka aan la leenahay ehelkeenna iyo walaalaheen ama dhammaan qaraabadeenna, waxaa waajiba in xiriirkaasi laga buuxiyo kalgacayl iyo ixtiraam la isdhaafsado. Waxaan kuu rajaynayaa insha Allah
inaad noqon doonto la jeclowga qoyskaaga. Fii amaanillah.